qof kasta marka uu maqlo madaxweynaha Mareykanka waxa uu sawiranayaa shakhsiyad leh awood inta caadiga ah ka badan iyo inuu go'aamo ka gaari karo arrimo aad u miisaan culus. waa run in ay saas tahay, laakiin waxa kale oo aanay dad badan ogaan in ay jiraan arrimo aad u fudud iyo ficilo qofka caadiga ah si xorriyad ah maalin kasta u sameeyo oo aan madaxweynaha Mareykanku awoodin. warbixintan waxa aynu ku eegaynaa qaar ka mid ah hawlaha iyo tallaabooyinka mamnuuca ka ah madaxweynaha dalka Mareykanka. in uu taleefanada caadiga ah ku hadlo ama uu saaxiibadiis xiriirka maqal iyo muuqaalka ah la sameeyo. hay-adda qarsoodiga ah ee ilaalada madaxweynaha Mareykanka waxaa waajibaadkeeda ka mid ah in ay qorshayso, isku dubarido, isla markaana hubiso ammaanka dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha uu qabanayo madaxweynaha Mareykanku. sidaas awgeed, madaxweynaha Mareykanka looma ogola in uu saaxiibadiis iyo ehelkiisa kala hadlo taleefanka caadiga ah ama uu la sameeyo xiriir maqal iyo muuqaal ah. madaxweynaha Mareykanka amni ahaan looma ogola inuu tago meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan, gaar ahaan goobaha lagu daawado filimada. si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha looma diido inuu maqaaxyaha dadweynaha u casho tago, inkastoo ay shuruudo amni oo badani ku xidhan yihiin. waxaa ka mid ah in madaxweynuhu inta aanu goobtan tegin ay uga horeeyaan kooxaha qarsoodiga ah ee amnigiisa sugaya, kadibna ay hubiyaan ammaanka guud ahaan goobta, isla markaana si xeel dheer u hubiyaan badqabka cuntada uu cuni doono, iyaga oo ka hubinaya dhinaca caafimaadka iyo in aan sun lagu darin. madaxweynaha Mareykanka amni ahaan lagama ogola inuu casho ka cuno meel ka baxsan aqalka cad, iyada oo aanay marka hore ka dhadhamin cidda rasmi ahaan aqalka cad ugu xil saaran dhadhaminta cuntada madaxweynuhu cunayo, si loo hubiyo inaan madaxweynaha la sumayn. gaari ma wadi karo. gaari wadistu waxa ay ka reeban tahay madaxweynayaasha dalka Mareykanka. sida oo kale looma ogola inuu raaco gaari aan ahayn gaariga gaarka ah ee aqalka cad, oo ah gaari madaxweynaha si gaar ah loogu sameeyey oo si fiican ugu diyaarsan xaalad kasta oo madaxweynaha ku timaada. sida oo kale, madaxweynaha looma ogola inuu gaariga madaxtooyada isagu gacantiisa ku kaxaysto, balse waxa uu wadaya qof si gaar ah loogu tababaray darawal u noqoshada madaxweynaha Mareykanka, kaas oo ay tababar gaar ah siisa hay-adda sirta ah ee ilaalinta amniga madaxweynayaashu. Dr. Jim Bronan, oo ah bara sare oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Villanova, ayaa sheegay in madaxweynaha loo ogol yahay socodka tamashliinta ah, kaxaynta gaadhigiisa shakhsiga ah ama kaxaynta baaskiilka, laakiin ay tahay oo keliya marka uu joogo goobaha nasashada madaxtooyada ee gobollada kala duwan ku yaala, ama haddii uu isagu leeyahay beer ama dhismo u gaar ah. waxa aana qasab ah in marka hore ammaankooda la hubiyey. ubadkooda kalema qaybgeli karaan xafladaha dugsiyada. madaxweynayaasha Mareykanka looma ogola in ay ka qayb galaan munaasabadaha ay dugsiyada waxbarashada ee carruurtoodu dhigaan. arrintan ayaa madaxweynayaasha Mareykanka badankooda aad uga cawdaan, kuna calaacalaan in ay saamayn aan fiicnayn ku yeelatay qoysaskooda, gaar ahaan horumarinta hibada ay carruurtu leedahay, maadaama oo aanay carruurtu helaynin dhiirigelintii ay waalidkood uga baahnaayeen. sababta loogu diiday ka qaybgalka munaasabadan ayaa ah in culayska sugidda ammaanka laga yareeyo goobta iyo dadka ka qaybgelaya labadaba. madaxda soo martay Mareykanka qaarkoodna carruurtooda aqalka cad gudihiisa ayaa u ahayd goob waxbarasho. adeegsiga tiknoolajiyadda iyo qalabka shakhsiga ah haddii aanay hay-adda ammaanku ka warqabin. waxaa qasab ah in hay-adda qarsoodiga ah ee sugidda ammaanka madaxweynuhu ay si buuxda uga warqabto wax kasta oo khatar ku noqon kara ammaanka madaxweynaha. haddaba, maadaama ay tiknoolajiyaddu samaynayso xawaare horumar badan ku socda, kana mid tahay meelaha khataraha amni ka iman karaan, waxaa la xakameeyey in madaxweynuhu uu isticmaali karo tiknoolajiyadda. waana sababta keentay in madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanka Donald Trump ay hay-adda sugidda ammaankiisu ka dalbatay inuu joojiyo isticmaalka badan ee Twitter-ka, ama ugu yaraan uu yareeyo adeegsigiisa. inkasta oo aanu madaxweyne Trump arrintaas u hoggaansamin, haddana wuxuu ogolaaday in akoonkiisa gaarka ah ay gelitaan u yeelan karto kana warqabi karto hay-adda sugidda ammaanka madaxweynuhu. isticmaalka shirkadaha duulimaadyada ee ganacsiga ah. madaxweynaha Mareykanka looma ogola inuu ku safro diyaaradaha ganacsiga ee caadiga ah. qodobkani waxa uu ka mid yahay kuwa aanu marnaba madaxweynaha Mareykanku baalmari karin, taas oo ka duwan qodobada qaarkood sida ka tiknoolajiyadda oo uu qaybo ka mid ah ku adkaysan karo isticmaalkeeda. furista daaqadaha aqalka cad. madaxweynaha Mareykanka iyo xubnaha qoyskiisa looma ogola in ay furaan daaqadaha aqalka cad, xafiiskiisa iyo qaybaha ay hooyo ahaanta u adeegsadaan labadaba. sidoo kale ma dejin karaan daaqadaha gaadhiga. marwadii hore ee koowaad ee Mareykanka Michelle Obama ayaa mar ay u warrantay saxafiga Stephen Colbert waxa ay sheegtay inay xiiso badan u qabto samaynta waxyaabo yaryar oo laga yaabo inay dadka caadiga ah la fududahay, laakiin iyadoo ay u xiisatay. waxyaabaha ay sheegtayna waxaa ka mid ah inay hesho xorriyad ay u leedahay in marka ay doonto ay furi karto daaqadaha guriga ay degan tahay iyo gaadhiga ay la socoto. madaxweynaha Mareykanka looma ogola inuu daadiyo waraaqaha xafiiskiisa yaala.
sida caadiga ah qofku waraaqaha xafiiskiisa ee u arkay inaanay macno lahayn waxa uu ku ridaa qashin qubka. laakiin markasta oo xafiiska madaxweynaha laga nadiifinayo waraaqaha aan waxtarka lahayn, waxa waajib ah in shaqaalaha aqalka cad ay tiriyaan dhammaan dokumentiyada la doonayo in laga takhaluso, kadibna eegaan muhiimadooda islamarkaana diiwaangeliyaan. sidaas awgeed madaxweynaha Maraykanka looma ogola inuu turo waraaqaha kala duwan ee xafiiskiisa ka maarmo. waxa kale oo aan madaxweynaha loo ogolayn inuu tirtiro fariimaha emailka ku soo dhaca, xitaa haddii ay yihiin kuwa uu u arko inaanay macno lahayn ama aaminsan yahay in aan loo baahnayn. si kastaba ha ahaatee, marmar ayaa hay-adda qarsoodiga ah ee ilaalinta amniga madaxweynuhu ay u hoggaansataa doonista madaxweynaha. inkastoo ay hay-adda sugidda ammaanka madaxweynuhu awood u leedahay inay madaxweynaha amarto marka ay la xidhiidho ammaanka madaxweynaha, maadaama oo iyadu sharci ahaan u xil saaran tahay xeerka sugidda ammaanka madaxweynaha ee dalka Maraykankuna uu madaxweynaha waajib sharciya kaga dhigayo in aanu diidi karin amarka iyo talada ay u soo jeediso hay-adda ammaankiisa qaabilsani marka ay arrintu la xidhiidho amnigiisa. haddana waxaa jirta marar ay tala soo jeedin ku koobnaato, gaar ahaan marka aanay ahayn arrin amniga dhibaato ku keenaysa, iyo mararka qaarkood ay u hoggaansato sida uu madaxweynuhu rabo, taas oo ah mararka laga aamin yahay in aanay khatar dhici doonin. Marjaan